Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan sii wadi doonaa componentska isticmaalkoodii iyo noocyadii kala duwanaa. Marka maanta waxaan rabnaa inaan dhigano componentiga loo yaqaano copy to clipboard, oo ah in qoraal dhex yaala app-kaaga sidaad u copy gareyn lahayd ama uu qofkan isticmaalaya uga dhex copysan lahaa. Marka imikoo kale xagaasaad edit text ba soo dhigi, waxaa odhan farta yar waaweyne ilaa 18 ka dhig. Hintigana waxaad ka dhigtaa fadlan geli qoraal. Hintigu waxa weeye qoraalka yar qofku uu sheegay waxaan meesha la gelinayo. Marka akhristo uu gelin marka qoraalka ama geli nambarkaaga ama geli addresskaaga, waxyaalahaas oo kale ayaad hintiga ugu qoraysaa qofka si uu u garto. Marka intaas ayaan ku daynaa edit text-ka. Waxaan soo hoos dhigi button-kan waa kii qofku uu ka copysanay qoraalku halkaa ku qoray. Marka waxaan height-kiisa ayaan weyneynaa edit text-ka. Height-kiisa ka dhiganaa ilaa 100. Bes kadib halkan waan hagaajinaa. Waxaan ku qornaa copy text ama qoraalka soo naskhi oo soo copy. Style-ka waxaad ka dhigaysaa qoraalka in yar ayaad farta 16 baad ka dhigaysaa. Waxaad doontaad ka dhigaysaa aday ku khusaysa taas. Kalarka kalarka doontaad ka dhigay. Kadib waxaan odhanaa marka lagu dul dhufto copy text xagga arkaysiin gacanta on click ba taabani. Marka componentigii hore aan soo sharaxnay ee toolasta iyo waxaan isticmaalnaa componentiga maanta inagu cusub ee ah copy to clipboard. Copy to clipboard khaanada ayaan maran maxaa la dhigayaa? Waxaynu dhiganaa qoraalku qofku meesha geliyay. Qoraalku qofku meesha geliyay inaysan ku yeelana waa kan text view get text. Text view waxaa la micnaataa qoraalku qofku geliyay. Get text waxa weeye inoo soo qaba ama soo qaad ama aduu inoo soo copy garay weeye. Kadibna qoraalku qofku meesha geliyay copy to clipboard yacni soo copy garay weeye. Kadibna toostaha maxaynu ku falnaa ama muxuu inoo tarayaa si aynu qofka ugu sheegnay in qoraalkii loo copyay. Waxaad oranaysaa qoraalka ama waxaad oranaysaa text copy. Kadibna waxaad raacinaysaa emoji ama sawir yar. Bes si uu qofku u garto in qoraalkii loo copyay. Kadibna app-ka waxaan odhanaa run. Kadibna waan soo install garaysanaa app-ka. Kadibna waan furanaa. Qofkii haddaba sanu app-ku soo galay. Halkan ayuu taabtay fadlan geli qoraal. Waxaan iska geliyay sheeka oo iska qornayo. Beri waxaa jiray nin la oran jiray Juxa. Kadibna qoraal dheer ayaa soo sii gelisay. Haddaba haddaad rabtid inaad qoraalkan copyaysid xagga inaad taabanaysaa copy text. Kadibna text copy oo kuu sheegay in la copyay. Inta soo baxana saynu aragnay in la copyay. Waxaad tagi meeshaad ku diraysid text-ka ama qoraalka note-ka ayaan u tagay. Kadibna imikoo kale waxaan ku dirayaa halkan qoraalkii password ama beri waxaa jiray nin la oran jiray Juxa. Marka
intaas ayuu maanta inoo eegaya casharkeena. Waxaan baranay sida loo isticmaalo copy to clipboard. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.